Wiilkani waxaa loo dhibaateeyay in uu shabaho ama ay isku eg yihiin wiilka ugu caansan Muqdisho Cabbaas. Warkii hore war soo dhaaf, kaba daran wixii hore. Kani waa mataanka Cabbaas, waxaana uu dhib u marayaa in wejiga ay iska shabahaan Cabbaas. Wiilka ugu caansan Muqdisho ayaa maanta la kulmay mataankiisa. Dad badan ayaa horay ula soo wadaagay muuqaallo iyo sawirro wiilkan oo loo malaynayay inuu isagu yahay. Waxaa ka sii daran, dadka falcelinta ka sameynayay muuqaallo uu wiilkan shabaha Cabbaas soo geliyo meelo uu ku leeyahay baraha bulshada, kuwaas oo ugu soo qoraya qaybta hoose Cabbaas oo doob ah ama single ah. Sida caadiga ah, Cabbaas waa xaasle, waxaana uu qayb ka yahay boqolaalka Soomaalida ee isticmaasha baraha bulshada. Wiilkan shabaha Cabbaas waxaanu weydiinay falcelinta uu bulshada kala kulmo iyo waxa ay ku dhahaan marka uu muuqaal soo dhigo mareegta uu sida gaarka ugu leeyahay TikTok-ga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Maanta waxaa waaye ninkii aan isku ekeen muddadaan la wada hadalhay waa soo wada kulannay anoo maanta waddada iska maraya xaafadaan aan kusoo qaldan ma fahanti ninkaanaa madax ii soo qabtay markee waxaa jiro ani dad badan oo igu qalday maanta messengerka waa liiga soo diraa waa liiga soo wacay marka ugu dambeysa adiga contactska oo WhatsApp oo TikTok iskala soo hadalnay saasaa kadib isku helno laakiin anagoo isla kulmin maanta waddada anaa isku maraya arkay waa sida adiga lagu soo diray anaa lagu soo diray aan lagu soo shirgareynay oo aan idhahay oo sidii ani xitaa contactskaaga email kala soo xiriir markaa waay waxaan go'aansaday in TikTok flow sidii TikTok inaan yani iyo wax barnaamij kale isku barano marka wallahi maxaa kale kula yaab badnaay laakiin anaa wax dhali karaa waa kaabiyay physical ahaan waay maani xogaa muuqaalka face aragtida maxaa kale kula yaab badnaa waxaa ila yaab badnaa maalin oo mooto ah intaa istaajiyay Cabbaas oo iyo waran aan idhahay waa raac saxaab maxaa waa cayshii aan idhahay ilmihiisa ku yiin saxaab ilmihii waxaa waaye saxaabi waraadii baa wareero ninka dhan waa filnak Cabbaas oo seetaan fiicanta ilmihiisa ku yiina ana markaas ma ku aqaanin adiga asaa ii geliyay marka Cabbaas ka yaabay waraan Cabdirasaaq ali dhaha Maxamed ali dhaha dhaadi maxaa Cabbaas ka sheegay yab meeshaas kula yaab badnay dhib oo kula kulantay Cabbaas u egtahay dadka dhib kala kulanta ma jiraan. waxaa jiro maalin anoo meeshaan xaflad yar oo aaday waxaa la yidhaahniyow Cabbaas oo iska bulay waa kaasa baalada iPhone-ka inuu adeegsan Pro Max iyo Plus iyo Cabbaas Pro Max iyo waayaawniyo Plus iyo barnaamijyadaas magac loogu dhigay. Cabbaas dhankiisa wax badan ayuu raadinayay wiilkan si uu uga xog waraysto shabahaadda iyo falcelinta dadku ay sameeyaan. Waxa kaloo uu sheegayaa inuu maqli jiray xilligii yaraantiisa in dunidu ay wada joogaan ilaa 7 qof oo caadi ahaan is-shabaha. Maantana waxa uu sheegay in mid ka mid ah 7daasi qof uu la joogo. Wallahi mararka qaarna waxaa is dhahnaa dadkan ameedinka waa looyihiin waxaan ay fake yihiin saas is dhahnaa anagoo saas is dhahnaa hadana markii muuqaal asal soo duubno muuqaalada dadka way daawanayaan dadka juhdi ay gelinayaan waxyaabaha qaar la yaabay ku noqonayaan marka waa midii ugu horeyso waxa la qof walba waxa uu eeg adduunka waxa maqla jiray waqtiga ciyaal dugsiga ahaa waxa maqla jiray qof walba adduunka waxa uu eeg 7 qof marka waxa la yidhaahdo community hal qof kamid ah dadkaaga waa heshay hal qof kamid ah dadka ku eekay waa heshay laga yaabo adna saas in lagu dhaamo wallahi lixda kale marka si dhab ah isku ekaano in physical ahaan ana iska dhisa waa gacanta lugta u eeg أنا ساعتين. هذا سميع. أقسم على أيوة أوكي. caadi ahaan wiilkan waxaa lagu magacaabaa Muhammad oo ugu qoran dhinaca TikTok-ga. Kanina waa Cabbaas. Labadooduba waxay muuqaal ahaan is-shabahaan xagga wejiga, inkasta oo xagga xoogga ama fidsanaantu ay laba kale yihiin. Kanina waa muuqaal kale oo dad badan ay wax badan oo falcelina ka sameynayeen muuqaallo iyo weliba heesooyin challenge ah iyo diyuud ay ku wada sameeyeen dhinaca TikTok-ga. ninkaan anaga isbitaalka waxa iyo labada cid inay waxa dhaan mid baan loo soo wareejiyay mid kale in la dhaho wallahi waxa waaye
ilaahay awoodiisa waa yaab baa marka waxa waaye aan maamada markaa arkay TikTok ku arkay sababtoo aniga TikTok isticmaalaa TikTok markii ku arkay maamada waxay soo jirtay kan ilaa ana dhaliyo isbitaalka laga xaday iyo barnaamij noocaas oo kale marka waa qasbiyo uga dhacay waa family waa kaftamayaan marka wallahi aliyaab saaid inuu noqotay balse hadda waxa ku faraxsanahay in midaankii kuwaad akeen dunida lixda kale ma suugina waa la doonaa lixda kale waraadinina oo saam ku joogsan doonto hadda waa ninkan adiga ka maqan ani lixa iga maqan total meeqa isku noqonay 12 qof aan noqonayna marka insha Allah dadaalkeedana waa haydaa waa kamiiso wax badan isbitaalka Somali Specialist Hospital wuxuu fulinayaa qaliimo lacag la'aan ah oo kala ah qaliimada haweenka sida toosinta minka, burada minka, burabiyoodka. Waxa kale oo uu fulinayaa qaliimada guud sida qaliinka xameetida, baabasiirka, eernada. Dhammaan qaliimadaas waxaa lagu fulin doonaa hab laser ah iyada oo la jeexin jirkaaga. Wixii faahfaahin intaas dheeriya kala xiriir Eberli hal 7 69 99 29.